waxaan maanta ka hadlayaa insha Allah neerfaha surka luqunta ama qoorta ka soo baxa haddii cilad gaarto waxyaabaha la dareemo iyo dhibaatooyinka uu keeno. ciladan waa cilad aad ugu badan bulshada. haddii aad isku aragtay qoorta ilaa kalxanta korkeeda ilaa garabka muruqa naaska koreeyo xuduudda gacanta ilaa gacanta oo xanuun ka dareentid mararka qaar kabaabiyo inay wax ka durayaan inay wax kaaga socsocdaan inaysan tabar lahayn inay dhaqso ku daalayso hadaa wax ku qabatid waxay tilmaamaysaa inuu culays ka hayo neerfaha surka ka soo baxayo. ciladaas waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa cervical radiculopathy ama brachialgia. xanuunkan badanaa waxaa keena laba arrimood. midda koowaad waxaa waaye qoorta oo jug ka gaarta ama jimicsi si qaldan u samaysid ama qoorta aad si qaldan u jucisid ama qof kale si qaldan kuugu juciyo taasoo keeni karto in carjawda surka ku jirta booskeeda ka baxdo taasoo cadaadis saari karta xangulaha ama neerfaha xangulaha ka soo baxa ee surka ku aadan dhibaatadaasna keeni kara. midda labaad waxaa waaye haddii aad qabtid xanuunkan loo yaqaano riixa ama tufta af ingiriiskana lagu yiraahdo osteoarthritis kaasoo badanaa ku badan dadka waayeelada ah. cudurkaas iyo cudurrada la midka ah badanaa carjawda ay cunaan ay baabi'iyaan disc degeneration wax la yiraahdo ay keenaan. carjawda marka ay baabi'iyaanne waxaa dhacda in lafihii ay isku soo dhawaadaan lafihii ay yeeshaan fiiqfiiqaasoo durayo neerfaha kadibna ciladan ayaa la isku arkaa. ciladan baaritaankeedu waa in sawir la saaro surka kaasoo noqon kara raajo ama MRI scan. waliba MRI scanka ayaa aad u fiican maadaama cilada jirta ay si fiican u sheegayso iyo dhaawaca neerfaha gaaray heerka uu gaarsiisan yahay. sida aad ka arki kartaan sawirkan kore carjawda ayaa booskeeda aad uga soo baxday taasoo xangulihii inay kala goyso ku sigtay. cilada markay heerkan oo kale ay gaarto badanaa way dhaaftaa dareenka kaliya inay saameyso oo muruqihii ayay u timaadaa oo gacanta waxaa laga yaabaa inay awoodda dhigto oo qofka bilaabo inay gacanta jarayso ama waxa uu hayo inay ka dhacaan uusan hayn karin. xilligaas oo kale markay gaarto badanaa qalliin ayaa lagu sameeyaa. laakiin sideedaba guud ahaan xanuunkan markuu bilow yahay qofka isagoona wax daawo qaadanayo iska caafimaadaa. hadduu xanuunka sii hayana waxaa lagula taliyaa inuu sameeyo jimicsi qoorta loogu talagalay taasoo qofku uu si toos u fadhiisanayo kadibna qoorta uu afarta dhinac u qalloocinayo marba mid inuu hore usoo qalloociyo oo garkiisa taabsiiyo meesha ka hooseysa dhunta gadaal u celiyo oo qoortiisa meesha u dambeysa geeyo kadibna dhegta uu midigta uu saaro garabka midig dhegta bidixna uu saaro garabka bidix 5 jeer inuu saas sameeyo maalintii. taas waxay ku caawinaysaa in lafaha ay kala kacaan carjawdan ay booskeeda ku soo laabato. way dhici kartaa qofka inuu u baahdo daawooyin in la siiyo oo isugu jiri kara kaniiniyaal oo ka caawiyo xagga neerfaha ama murqaha ama in meesha culayska uu ka haysto laftirkeedaba looga duro cirbad taasoo bararka ka dejinaysa. hadduu qofka isku arko cilada inay soo tarayso ama uu arkay inay tabardari gacanta ay keenayso waa muhiim inuu si dhaqso dhakhtar ula xiriiro. mararka qaar waxaa dhici karto labada neerfo ee ka baxan gulaha oo midig iyo bidix kala aado inay cilad ay ka saameyso oo culays ka fuulo taasoo meesha ka dareemi lahayd hal gacan kaliya cilad labada gacmood bin awoodday ka tagto ama ay ku yaraato taasoo macnaheedu ah labada neerfo inay culays ka saaran yahay. marka ha dhayalsan haddii waxyaabaha isku aragtid fadlan dhakhtar la xiriir waana muhiim arrintaas. halkaas ayaan kaga baxay cashirkan. fadlan wixii su'aalaha qabtid qaybta commentiska ku reeb. fadlan faafi ciladan bulshada aad ay ugu badan tahay dadkana ma fahansano. dad badan ayaa u aaminsan inay tahay muruq oo muruq iska saar iyo muruq doogis ku mashquulsan laakiin ciladan waa cilad neerfo waaye. waana mahadsantihiin.